kulankani oo ahaa dood cilmiyeed looga doodaya tacadiyada loo geysta haweenka Soomaaliyeed oo ay kamid yihiin gudniinka fircooniga oo dhibaatooyin baan ku haya hablaha Soomaaliyeed ayaa waxa soo qaban qaabay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Galgaduud Youth Development Organization marka magacooda la soo gaabinayo loo yaqaan Geydo waxaana ugu horeynba kulankani ka hadlay gudoomiyaha ururkani Xiis Maxamed Cusmaan. ururkan la yiraahdo Geydo Galgaduud Youth Development Organization waxa la aasaasay December 10keedii waxa aasaasay dhalinyarada Soomaaliyeed oo markaas u aasaastay inay isugu imaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed wixii ay qaban karaan ay qabtaan saddex waji ayuu yeelan doonaa shirkeena anigoo raba timekeena aan iska cunsoona gabagabeeyo saddexda waji waxay noqonayaan maxay tahay tacadiyada loo geystay dumarka Soomaaliyeed waa number 1 number 2 maxaa keenay in lagu tacadiyo dumarka Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed oo mujtamac kasta laf dhabartooda in lagu tacadiyo maxaa keenay waa lambarka labaad saddexaad haddii ay dhacdo dumarka Soomaaliyeed in lagu tacadiyay sidee ayaa looga gudbi karaa inaan dib dambe tacadid dambe oo dumarka Soomaaliyeed loo geysto oo soo laabanin sidoo kale kulankan ayaa waxa ka hadlay Qoraasar Khaliif Ashkirdiin oo isna dhankiisa qaatay isla markaana ka hadlay dhibaatooyinka baan ee lagu hayo haweenka Soomaaliyeed waxa soo dhan waxa kaaba oo hadaan rabtaan gabdhuhu soo uga bixinayaan kufsiga iyo hoog iyo baa dawlad macnaale aynu dhisano oo idinka dhisi kare leeynimo ogolo runtaan idin sheegaya inaad dawlad macnaale dhisataan laakiin haddii leyn kari waayo oo aad meel isku shubtaan oo dhalinyaradu soo baxdo wuxuun baa leeyni ogolaan waxa sidoo kale madashan ka hadlay Maxamed Maxamuud Guutaale oo ah xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkani Kenya isla markaana hadallo fara badan ka soo jeediyay munaasabada kuwaas oo taabanaya hablaha Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka loo geysto waa arrin murugal weeye xiriiqa qaxootiga sidoo kale hablaha ama haweenka Soomaaliyeed waa lagu kufsadaa wiigiina ilaa 5-6 baa la kufsadaa oo dhibaato loo geysta haweenka sidoo kale haweenka tahriiba ee u gudba ama Afrika ha noqoto ama Yurub ha noqoto sidoo kale iyagana tacaddi fara badan ayaa loo geystaa ama kus fara badan ayaa loo geystaa waxa jiray wabiga u dhaxeeya Turkiga iyo wadanka la yiraahdo Greega in gabar Soomaaliyeed oo uur leh oo socon kara weeyday nolosha lagu xabaalay nimankii tahriibinaya nolosha ku xabaalay gunaanadkii munaasabadan ayaa waxa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay Najax Yuusuf Ashkir oo iyadoo ah gabadhii aasaastay ururka Geydo munaasabadii kulankani oo ahayd mid aad looga dooday dhibaatooyinka loo geysta haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa soo qaban qaabay ururka Galgaduud Youth Development isla markaana waxa looga hadlay dhamaanba dadkii ka soo qayb galay inay ugu jajaxeen dhibaatooyinka ballaaran oo loo geysto dumarka Soomaaliyeed Cabdirasaaq Miro Dhoorre Hon Cable TV Nairobi Kenya